Sheekh Maxamed Saawi oo ah sheekh Masriya oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Masar kuna nool wadanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa qisadan ka sheekeeyay waxa uu yiri 20 sano ka hor mar aan masaajid ka ahaa sheekh oo muxaadarooyinka iyo duruusta ka bixin jiray ayaa waxa dhacday Ramadaan ayaa soo dhaweyd waqtigaasi dadkii waxaan xasuusiyay in Ramadaantii inagu soo dhowdahay oo maalmo ay ka hadhan tahay Ramadaantii ayaa la galay maalinkii 7aad ama maalinkii 6aad markii Ramadaantu mareysay ayaan taraawixii tukanay sidii caadada noo ahayd Ramadaantii markaanu taraawixii tukanay ayaa salaadii markaa taraawixii ka baxay ayaa waxaan arkay buuri wiil dhalinyaro ah oo gadaasheeda ku tukanayay oo ooyaya oo aad iyo aad u ooyaya xaalkiisii ayaan u tafaquday oo aan baaray oo aan u gudagalay wiilkii baan la sheekaystay wuxuu igu yiri miyaan idin garanayn waxaan ahay suldaan waxaan ku yiri kuma garanayo suldaanku waa ayo waxaan ahay nin caan ah ayuu yiri oo magaalada laga garanayo waxaan ahay buuri taajirka ugu weyn magaalada ee ka ganacsada mukhaadaraadka iyo waxyaabaha daroogada wuxuu yiri shurtada ama askarta iyo amni caam oo dhan ay raadsanaya dadka oo dhan ay raadsanaya meel aan ku gabada mataqaan waan la ahay aabahay waxay ugu dambeysay buuri muddo bilo ah ka hor gurigeyga ma tagi karo markastoo isku day gurigeyga inaan tagana aabahay waxa uu wacayaa lamarka askarta amba haatif ama jawaal shurta si la xiro ugu dambeyntii aniguna waan ka qancay guriga aabahay ma tago waxa aan hadda rabaa wixii ka dambeeyay inaan toobad keeno in ilaahay u toobad keeno ya sheekh hal yaqbal Allahu li tawba ilaahay meega aqbalayaa toobada markaas aan ugu jawaabay buuri sheekhu maxaa adiga iyo toobadna kala dhex galay waa toobad keeni kartaa waana ramadaantana qasfida shayaadiin ama maradada shayaadiin waa la xidhaa shayaadiinta waaweyn albaabada naarta waa la xidhaa waa toobad keeni kartaa ahlan wa sahlan soo dhawow ilaahay u toobad keen ilaahay waa qafuur rahiim in allah yaghfiru dhunuba jamii'a waxaan ku dul akhriyay buuri aayaadka ka hadlaya dambi dhaafka iyo soo laabashada ilaahay waa uu toobad keenay waxa uu yiri sheekhow mid baan ka codsanaya haddii aan ku laabto dadkii xunxunaya asxaabtaydii laba shay waan ka cabsoonaya shayga koobaad ka cabsoonaya waxa weeyaan inaan xumaantii ku laabto oon ilaahay toobada u waafajiyo dib uga laabto oo fujuurkii iyo macaasidii iyo cisyaankii iyo wadadii khaldan dib uga laabto qodobka labaad ee ka baqaya waxa weeyaan buuri in aan arko lacagta iyo fawaaidda la faa'iidayo oo dadka daroogooyinka ka ganacsadayay waa dadka ugu dhaqaalaha badan 1 milyan baan faa'iidi jiray buuri malaayiin kun oo riyaal marka waxaan ka baqayaa buuri labada qodob oo ah inaan dib u laabto macaasidan ka toobad keenay iyo inaan fawaaidii adduunyada arki jiray ee faa'iido faraha badan lahayd inaan arko isla markaana dib u laabto waxaan doonayaa buuri masaajidkiina ku noolaado oon halkaasi dadka wanaagsan ula saaxiibo si toobadaydaasi ay mid taam sax u noqoto maalmaha ka mid ah buuri iyadoo bacda casr la joogo ayuu igu yiri sheekh arrimo ku sheegaya oo u soo dhawaaday iyo warama ku yiri wuxuu igu yiri buuri waxa aan u baahanahay quraankan xifdiyo markaasaan ku yiri ma karaysaa yoom walba inaad hal safxad xifdido amba bog ma xifdin kartaa maalin walba aan ku dhiirigeliyay buuri quraankan xifdiyo marka waxaan weydiiyay buuri intee baad xifdin kartaa safxad ma xifdin kartaa markaas uu igu yiri 2 safxadood ka badanba quraankan xifdin karaa wuxuu muddo bil ah iyo badh kadib wuxuu xifdiyay buuri in ku dhow average oo shay aad iyo aad u cajiib ah wuxuu yiri wallahi 7 bilood gudahood quraanka inaan ku dhameeyo inaan doonayo ku xifdiyo dhammaantii himada awleeyay bal fiirso waan shalay soo toobad keenay shalay macaasi ku dhex jiray shalay ahaa tujaarta ugu waaweyn ee mukhaadaraadka ganacsada maanta wuxuu ku haminayaa inuu 7 bilood gudahood quraanka ilaahay kaamilan harfiyan si khatmi ah oo xifdiyo waxa jiray buuri wiil ay walaalayihiin oo tuulo kale ku noolaa oo magaalo kale oo magaaladan ku noolahay ee riyaada ka fog ku noolaa ninkaas imaam buu ahaa sidiisan ma una ahayn nin kaleedan oo dhibaato badan ma ahayn nin imaama oo qaariye oo masaajid tuji ayuu ahaa isla waqtiga xaadirka aan joognana
taraawiixda ayuu waqtigaa tujin jiray masaajidka oo imaamka ka yahay. ninkii baan raadiyey, nambarkiisii baan raadiyey, waa lala xiriirsiiyey, waan la hadlay, waxaan kuri buuri ma garanaysaa walaal aad leedahay oo la idhaahdo Suldaan? haa buu buuri. qaybta labaad insha allahu tacaala waxaan ku faahfaahin doonaa bal halkii ninkii Suldaan halkuu ku dambeeyey iyo walaalkii isaga waxa dhex maray. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.